waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waana qayb 13 kana mid ah taxanihii ku saabsanaa dhaqanka Soomaalida iyo xididka. dhegaystayaal dhaqan ahaan dhif bay ahayd in la arko sodoho iyo ninka gabadheedu u dhaxdo oo murmaaya ama meel fagaare ah ku kala eed sheeganaya. dhif bay ahayd in la arko labadooda oo loo garnaqaayo oo odayo loo miiray ay arrintooda u fadhiyaan. intabana waxaa ka daraa oo aan la suurayn kari jirin in sodoh loo gabyo. guud ahaan inkastoo ay arrintu sidaas ahayd haddana inta aan ogahay waxaa jiray 2 nin oo inta ku dhiiraday sodohdood wax u tiriyey. midi waa toddobaadkii hore ninkii aan sheekadiisa idiin mariyey ee isaga oo sabool ah qoyska saboolka ah ka guursaday dabadeedna intay malaha wax la'aanta ku qoonsatay tixda gaaban sodohdiis u tiriyey. ninka kaas labeeya wuxuu ahaa gabyaagii weynaa ee Ismaaciil Mira la oran jiray. iyada oo Faadimo Dhoore ay muddo wada joogeen ayuu gadaalkii ka miyaray. wuxuu guursaday Dhiimo Cawad oo la filayay mar hadday miyara tahay waqtigiisa inta badan inuu iyada la joogi doono. wax ku wacnaaba taasi ma dhicin. afadiisii hore ayuu Ismaaciil iskala dhigtay. dabadeed halkii ay gabadhii ka masayri lahayd sodohdii baa ka masayrtay oo ma ay qarsane diirka ayay ka qaaday. waxayna ugu darayd markii ay gabayday oo sidii iyada oo lala qabo ay Faadumo wax uga sheegtay. waxay marisay farsamo ahaan tix uu deelqaaf ka muuqdo. yeelkeeda Faadumo ayay gaabni ku dhaliilaysaa. quruxda gabadheeda ayay ku dhaadanaysaa. dhibaat badan oo ay reerka keentayna Ismaaciil bay xusuusinaysaa. waxay tiri gabar dharada oo dhuuban oo dheer maad qabine weylaalis dhiina iyo lama ikuuma dhinac oole adigaaba dhaydhayanayee dhabayac weeyaane dhuulada magaalada waxaan dhira ku soo laaqay sidaad dhiima baraxay u tiri baaqi bay noqotay. gabaygaas Faadumo way dhibsatay. markaas bay Ismaaciil ku tiri gabayga aan ka jawaabay ii ogolow ama adigu wax ka dheh. wuxuu yidhi anigaa la ii gabiyey jawaabina anay ila gudboon tahay adigu ka shidaad bax. sida ila tahay Ismaaciil inuu ka aamuso way ahayd. inuu wax ka yidhaahdana gar buu u lahaa. tii uu garta u lahaa ayuu doortay markuu calowle u jawaabay isaga oo marka hore waxa dhacay iyada dusha ka saaraya. marka labaad Faadumo u aargudaya. marka saddexaadna gabadheeda aad u dhaliilaya. sodoh loo gabyaa eedda ay leedahay intuu iyadii u xambaariyey ayuu yidhi dhammooy calowla inaad dhiiran tahay dhabadku ii sheegiye anoo yaradka soo dhurahayoon dhib iyo ceeb keenin inay dhiil lakiin ii gasho oo la igu dheereeyo dhiqi maysa labadeenna reer iyo dhammaanteene adigaa dhabbada ii baxshaye dhibic yar baanbaanigu. gabar dhalada oo dhuuban oo dheegga maxamuuda oo dhalaysa oo khayr leh oo dhaqata reerkeeda oo aan dhagamsan sida dhiimo meel dhuci ka raacayso oo dhaga adayg lama rabee maqasho dhowdayda oo dheegga maxamuuda baan dhinac ka seexdaaye dhuulada magaalada haddaad dhira ku soo laaqday dhaayaba ayaa saaray oo dhalashadii eeday. haddiise aad lama-adhiina iyo 10 dhiraal keentay wax dhistaba inuu waayey sow ma aadan dhaadaynin adigu dhoodso gabadhaadu waa dhababka loo qaadi. waa dhow ka hor hanaanka warisgaarsiinta ee hadda la haystaa dunida kama jirin. taarka oo qarnigii 19aad soo shacab ahayna looma wada sinayn. muddo dheerna wuxuu ku ekaa dalalka galbeedka iyo dowladihii cilmi baaristooda ku washaray. sidaas awgeed barkii labaad ee qarnigii 20aad wixii ka horeeyey qalabka casriga ah ee wax la isugu tabiyaa sooma uu gaarin ummadaha haatan dunida saddexaad lagu tilmaamo. Soomaalidu ummadahaas ayay ka mid ahayd. wixii keli ahaa ee iyagoo geyi kale fog kala jooga ay reer miyigeedu wax isugu tabin jireenna wuxuu ahaa dab weyn oo markii la oogo meelo kala durugsan laga arki jiray. marka ay dhiila jirto ay col isaga digayaanna waxay isku ogeysiin jireen qalab la afuufo oo dhul fog laga maqli jiray sida buunka carooga iyo garida. qalabka warisgaarsiintu haba ku yaraadee Soomaalida wax iskuma seeganayn. iyada oo kala dagaana ayay haddana isu warhaysay. ganacsiga ayaa xeebka xeeb iyo miyiga u dhaxeeya isaga gooshi jiray. taar iyo telefoon midnaba la isuguma gudbin jirin. haddana gabay hobyo laga tiriyey ayaa wax bil ka yar kadib
jigjiga lagaga haasaawi jiray. Kismaayo iyo xeebaha koonfureed dagaal ka dhacay ayaa maalmo gudahood caluulo iyo bullaxaar laga ogaan jiray. taasna waxaad ku rumaysataa allaha u naxariistee gabyaagii la oran jiray maxamed bulxan oo maxamed cawar lagu naanaysi jiray, reer berberana ahaa, siduu ugu warhayey dabayaaqadii qarnigii 19aad dagaaladii gosha ka qaraxay ee nasiib buunda uu ammaanduulaha ka ahaa, is-addoonsigana lagu diidanaa. isaga oo xeebaha waqooyi ku sugan ayuu maxamed cawar ogaa kuwa koonfureed wixii ka dhacaayey. markaas buu dirirtii halkaa ka ognayd wuxuu ku xusay tuduc ka mida gabay hawaara waran ah oo uu berigaa tiriyey. waa tuducii ahaa biyamaal baraawiya fadhiya badaha sii jeeda isba buundo dabadii ma cunin budiya iyo sababaha dartood bay dadka qaar waxay ugu malayn jireen arlaa'iga kala fog waxa warka u kala qaadaa in ay dabaysha tahay. fikraddaasina waxay meelo kaga xusan tahay qaybaha suugaanta soomaalida. tusaalena waxaa u noqon kara qamaan bulxan arartii uu ugu furfurtay jawaabtii uu ka celin jiray gabaygii cali dhuux ee guba ku magac dheeraa. waa kii ku bilaabay caliyow dabuubtaadii gabay daayinkaa waday ee dabaylaha xagaagii bafleh iyo daafigaa sidee noo dooji sidii doogga iyo dararta caanood ee dadku uma sidnee reer tolkay dacad ku noolay. si ay haddaba u muujiyaan kolba ninka gabadheeda qaba xishoodka ay sodohdii ka mudan tahay, maskaxdii hore ee soomaalidu waxay mala awaashay sheeka xiriiro ku saabsan faafidda warka iyo dabaysha. waxaa la yidhi ninbaa wuxuu jeer ku tashaday in arrintaas iyada ah uu runteeda ka sargaaro. wuxuu ku hamiyey inuu ogaado sadcaalka warka iyo faafidiisa in dabayshu wax ku leedahay iyo in kale. markaas buu faras dheereeya oo uu lahaa kooraha ku boobay. 2 maalmood hadduu sii socday aadna uga fogaaday isaga iyo herixididkii halkii ay ku jireen ayuu sangihii ku hojiyey meel kayn ah oo dugaag iyo shimbira mooyee aan 2 nur cidigeed ka harsan. meeshii uu faraska kaga degay meel aan ka fogayn ayaa waxaa uga muuqatay dudun dheer oo dhinac walbana godad waaweyn ku leh. waxaa la yidhi godadkii dudunta midkood intuu afka saaray ayuu sabab uu u doortay garan maayee islaantiisa dohdiis ahayd cay ku daldalayoo sidii isaga oo qof kale la faqaaya cod aad u hooseeya aad ugu aflagaaday. afxumo oo idil kolkuu ku afuufay erayadii cayda ahaana ay ka wada dhammaadeen ayuu duduntii afka kala soo baxay oo inta faraskii fuulay dib isaga noqday. waa kaas isaga oo keligiisa islana hadlaaya wuxuu ku celcelinayaa maantaa la kala ogaan in dabayshu warka qaada iyo in kale.